السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمان انت كحرن يوتيوب channelكي fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. haddii aad hore noogu taxneedna fadlan like saar. youtube-kan halkan kaliya wax uun le ka faa'iidi doontaa insha allah. marka walaal website-kiyaan ka hadli rabnaa Crypto Power VIP. Crypto Power VIP aan ka hadli rabnaa. horta website-kan aad u jeedaan dadka qaar waxay ayba aaminsan yihiinba lacagtayna waa noola soo diri doonaa ayba aaminsan yihiinba. laakiin horeba website-kan wuxuu u socday adi aqli ayuu ku isticmaalay. haddii adi aqli u isticmaali waasi adiga aqli lagu isticmaalaya. aniga waxaan idhahay horta 2019 soo bilaabay. qof qaar ayaan soo arkay 2019 soo bilaabay website-ka inta maxaa ani sidaas lama jeedo micnaha maalgashi waxaan la dhahay waxaan dabagalay ayaan ula jeedaa. xili waxaan dabagalay dawraacay website-yadan oo qaabkan u yaal aan dawraacay 2019 sidaas ula jeediyaa. qof qaar aan soo arkay website-ka 13 maalina oo shaqeeyo waaba adina waxa dhuusahay 2019 soo bilaabay. aan website-kan ulama jeedi laakiin website-yada dhan aqoontooda xiliyaas soo bilaabay sidaas ula jeedaa. ha ahaado website free ha ahaado website maalgashi. teeda kalena website free oo lacag free ah ku siinayo ku dhahayo waxaas waa been. waqtigaada ha iskiga luminin waqtigaada ka faa'iideyso. 2019 ilaa 2020 website-yada free ah ayaan soo daba joogay. website-yada free ah ayaan soo daba joogay halkaas sano u jeedid si u dabagadoomayay waqti iskiga luminay kaliya 10 cent ayaan ka faa'iiday oo halaay suxun 10 cent xataa waa kan application-ka inta uu jira clip clubs ayaa 10 cent bis ka helay rafaad xataa. marka waxaas free oo la dhahayo wax kama jiraan waa been kaliya waxay ay rabaan dad badan inaa u share gareyso ay kusoo dad badan inaa u share gareyso ay kadib dad kusoo biiraan ayagana website-yada markay dad badan ugu imaadaan saas lacag ay ku helayaan. sidaas waay qaabkaas uu dan leeyahay waxay ku siinaa haba yaraatee ma jirto. teeda kale iyo telegramyada oo dhahayo saaxiibada u sheeg $1 helisa iyo tan kale su'aala telegram jiro hadda 10 qof u share galay kadibna su'aal ka jawaab shuruudaha waxa waaye 10 u share galay qof su'aal ka jawaab kadibna $50 heli. waxaas waa been. haddii saas waxaas socon lahaayeen dad badana ama kan fadhigaada ku maqli lahayd adoo maqlinba. waxaas waa been. waqtigaada iskiga luminin adile fikir kaliya ninkaas waxa faa'iido u jirta 10 qof oo share gareynayst faa'iido u jirto intaas misla fahamni iyo waqti kala si saamixo. waxaan rajeynayaa halkan kuwa tuugmiinta waaweynka ah inaa ayagana cashirka soo diyaariyo oona iska ilaalisaan kuwaas. website kaliis maana iyo tuugmiin kala buuxa internetka buuxo adiga le lagaa rabo lacagtaada inaa lagaa dhaxo. ma fahanteen? marka website-kan horta oo la dhahayo crypto waxa inta aan galin horta dad aysan ku dhacday. inta aan website-kaas galin dad oo sidaan ku dhacday waa la helaa malena. inta aan website-kaas galin dad oo qaabkan ku dhacday inta website-ka galin dad qaabkan ku dhacday waa la helaa sida aan filayo. waliba dad badan waaye dad qaabkan ku dhacday macnaha video hal mar ila soo daawadan ula jeedaya. video hal mar ila soo daawada inoo sidaan oo dad yeeli inuu ni yeelay xataa hore u ogaa. video ilfiiri iimaan darida haday ku qaado sidaan lagu galaa. iimaan darida haday ku qaado sidaan lagu galaa.
haye laba caaya lasoo siiyey haye oo ku celinaa haddana labaa loo soo dhigay macnaha ha kusii farxale wax dhan hal mar kusoo aruuriya laga wadaa dee haddana laxoo kunoo geliyaa 2,000 lasoo siiyaa ababa warnimka waxaan wax jir waaye wax dhan ku aruuriba isu soo leey arag haye wax dhan lagu aruuriyo wax dhan jeebkaada dhan iska siibtay maya marka ugu dambeysa ku aruurina hadda ma haye waxaan sax waa markuu isleeyahay haye wax dhan oo soo qabanaa ku aruurina haye qisadan dad ku dhacday isla hadda way jirtaa isla website-kan ku rido haye albaabka la xirtay website-ku waa sidaas marka walaal website-ku waa sidaas oo ku yeelay ma fahanti sidaas ayuu ku yeelay ani mar hor waan iiga digay waxaan ku dhahay website-ka aaminin toban wax ka badan ha gishinin iimaan darada iyo ku qaadin sidaas hore waan kugu sheegay hadda lacagta dadka uu ku haysto qof oo usoo diraayo haba yaraatee ma leh qof oo usoo diraayo haba yaraatee ma leh kaliya ayaga xatee lacag badan la gasho ayay aqliyooda ahayd haddana lacag badan magaalo gasho kuwaan xataa scam waaya waxaas hadda xataa Soomaaliya loo sheergareey waa website adiga website aan oo maalgashanaya kuwaas nacashira ay doodo doona insha Allah hadda wali website ma bilaabaya website-yada dhan hadda wali website kuma dhaqaaqin loo jinaado wiilku saaxiibkee akoonkiisa waa kana fiiri qaabka loo galay akoonkiisa horta ayaa meeshan ka raadina baaritaan dheeraan hay marka kuwa Soomaalida aqoonba maba u lahaba website waa iska maqleen aqoonba maba u lahaba marka asxaabay website-ka hamiga ugu jiri maxaa website-kan uu ogyahay in Soomaali ay ku cusub tahay maalgashiga sidaas oo nin igaaday dadka mar hore iska dhaafeen wadamada kale wax laga maalgashinayo male mar hore iska dhaafeen mar hore ayay iska dhaafeen idinkana hadda ayaa ii maalgashinaysiinba dadkana mar hore ayay iska dhaafeen waxay rasuga qaabka oo niilu isticmaala inay Soomaali ay isticmaalayso Soomaalida ku soo badanayso website-ku uu ogyahay qaabka ku ogaan karana aan ku tuso qaabka oo ku ogaan karana aan ku tuso wiilka hadda qaabka uu ku ogaan karo marka aan ku tuso qaabka oo ku ogaan karo horta aan ku tuso website-kan Soomaali inay ku soo daadanayso qaabkan ku ogaaday Soomaali inay ku soo daadanayso qaabkan ku ogaaday ila arag ila fiir ana horta waxba qasaar igama qaban baan ku mashiga waxaana bayt waaye Soomaali inay marka asxaabta marka sida aan ii sheegay waaba wiilkan qaab kala yeelay daya waa wiil saaxiibanahay idinka website-kan waa 17 bisha 2020 dad hore u qayaaniba taariikhda magameeraysa sidaas aabadada ay qayaaniba hadda Soomaali magay ku soo biirtay xoolo ala dhahay saasas allahay ayagana web iska aamineen lacag badan iska qasaariyaan ani markasta waan idinka digay dadka qaarna lacagta adile isku ogashidneeyo marabtid inaa dadka ay lacag ka faa'iidaan adile lacag rabtid inaa lacag ka dadashitid ay dhaayeen dadka qaar laakiin hadda waxa laga yaabaa dadka qaar inay yaabiin lacag website-kan hadda lacagtaas oo processing-ka uu qaadatay mana soo wado ninkan qaabka laga yeelidaya $6 oo gashti wali wuxuu ay $3 gashti wuxuu helay 6 ayay kadibna $68 mujida lacagta gashti waxay noqonaysaa $8 lagu qeyb $32 may noqonaysaa $34
$34 oo gashtay $68 helo isdhaay nag waa kana processor loo qabsay 17kii bisha 2 2020 ee mujida processing $68 processing ay ka gashay $68 processing ay ka gashay kadib hadamgii oo Soomaalida oo wuxuu maqlay website sax waa saas waa dadkii Soomaalida markay ku yaaceen hadana uu boroway $2 geli jug waa la sii hadana lacag badan inuu soo wado waxay rabeen marka lacag badan in hal mar web uu siiyo kadibna loola jafo waxay $2 geli $68 maba soo dirine $2 sababta soo diray maxaa $2 geli $2 waa helay $3 geliyay $6 waa helay $5 geliyay $10 waa helay hadana maxuu isdhaa hadana lacag xoo geliba $9 geliyay $18 processing inta meeq farqi u dhaxayso $68 iyo $18 saddex toba lacagta la siiyay marka afraadna processing loola galay ma u jeedaan $68 hadda wiilkaas ma helin iyo $18 ma helin hadda Soomaali dhan adiga ku dhawaad 5,000 ka badan website-ka isticmaashay inay lacagta waxa la garibi kaliya lacag badan inay soo gashtaan kadibna loola yaaco marka aad website walba ha isku aaminin inta aan ku dhihi lahaa waa sidaas website ha aamin ilaa xaqiiqada ku wada hatta hada aaminaysid wax yar iska gasho lacag xumo ka sabri karan ha ku aaminin wala intaas ku celcelinayani intaas ku celcelinaya cashirkii kooriya hatta bitcoin-ka qaabka loo xisaabayo waana tusi as bitcoin aanu xisaab ma aragtan dadku waxay 518 bitcoin ay gashteen asna 426 bitcoin oo dadka si inta kale waxay ku soo haray asaha la yaacay marka wax walba waa u jeedaan website-ka Soomaalida ayaa u badaneed hadana qaabkana loo galay marka hadda qofkii lacagta ka qasaartay oo iska sabrale wuxuu kala sheegay meel kale loo aadamay website-kan dadka qaar waxay dhahaan UK laga leeyahay sax waaye oo shaqay doona lacagta waa helinaa saas waaye qaabkaas lacag aad helaysid mal wala hadiiba marsan lagu yeelay lacag aad helaysid mal ninkan website-kan soo saaray website kale oo sidaan ku leeyahay soo saaray jiro Crypto wax la soo diray Crypto ku bilaaba magaciis Crypto Emirates Crypto saas Crypto Power saas la oo ku wada website-yaas hatta anaga sidaas aan u soo yeelay waa maalgashani lacag badan maga gelini oo jeebka inaan ku ewer marka gelini lacagtii waa nool xayiti marka asxaabta website walba ha aaminin website walba dadka qaar oo idhahay website khiyaano ma noqonayo waa website la UK laga leeyahay war gaalada naftirkeeda gaalada tuuga dhalewa ana gaala lacag leem gilaan hatta la yaaba iyo sidan qaabkan dadka u galayaan marka walaal waqti inaan ugu sii baday maro anina inshallah website-yada aan isticmaali doona halkan waan idin soo sheegi doona qaabka isticmaalisin saxda u dageysin inshallah laakiin hadda wali website ma bilaabin website-yada isticmaalayada scam ay wada noqdeen hadii kala hadana website fiican daraarina saxda u isticmaalina inshallah kadibna meesha tagayna faa'iidadan maga qaad marka sidaas waa walaal iska ilaali tuugada oo internet-kana way badiyeen inshallah kuwaasna aadaan aaga hadli doona iyo kuwa Telegram-ka tuugada ku shaqeysta marka intaas dhan iska ilaaliyaan ku dhaaya aykan cashir ayaan ka diyaari doonaa kuwa Telegram-ka tuugada cashirka oo ka hadlaya jiro Telegram-ka tuugada kuwa iska ilaali isla markii wiil ay soo wacay oo dhaayay sidaas oo sheegis anaaba leeyahay galay marka horta hadda ina hadal nigu sii dheeray mari laakiin inshallah
casharada kale waa arki doontaan insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iidi doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan telegramkayna kusoo bir linkii hoos ka fiirso.